qaybtan kale ee familka saxda ah ee habboon ee dhaleen habboon waalidiinteeda macnaha filimka season 1 ilaa iyo hadda waa la socday season 2 wax badan ay naga fahansiiyeen intaan filimka fiirsanaynay waalidka saxda ah ee habboon dhaleen marka haddii aan fahanay haddii kale waa isla wada arki doonaa laakiin anaga siday nala tahay ay hadda u sheegaynaa waalidka saxda ah ee habboon ay dhaleen waa oday xasan iyo maamo aamina iyo wiilkan jacfar familkooda waaye habboon waayo waxaa ka dhuntay oday xasan iyo maamo aamina gabar yar oo ifraax la dhaho ayaa waa hor ka dhuntay macnaha iska ilaali intaas abeer wax baraya hayado ifraax abo macaka abo abo ayda mashallah baba mashallah waxay ila tahay gabadhaas inuu helay oday ducaale sidaa ee ugu wateena u korsadeen ee habboonna ugu bixiyeen ayaamaan ku baafinayna mar walbana waxaan sugaynay qof inuu soo gargaraaco gurigeena isagoo gabar raadinayo laakiin nasiib darro waa dhiciysaa saasay ila tahay marka filimkana waa ka dareemay macnaha in qaabkaas oo kale uu yahay muddada guriga isla joognaa anagu dhan waxaan moodaynay inuu abti dhalay laakiin guriga markay ka tagtaa ogaanay inuu abu soo helay inta dhan qof ma soo raadin miya qofna ma soo raadin ayadana qofna ma raadin cosmoge absoo lagama yaabo inay farax nooshahay oo la xaday waan wiil dhiman waqtiga ilma la xaday waqtigaas ma ahayn waxaa socday dagaal aad u xun qof waliba ilmihiisa meesha uu geyn lahaa ayuu ka fikiraya markaas hooyada ma nooleeno iyadaa ku xambaarsaneyd marka wad arkaynaa koley anaga waa ka hor dhacnay qisada laakiin sida nala tahay aan u sheegnay aan u fahanay filimka waan wada arki doonaa halqada ugu dambeysa ee filimka meel ay ku dhamaataba laakiin dadka nagu xiran jilinka jiilka anaga ahaan filimka horta waa filim oo aad u xiiso badan Soomaali badanna xiiseyso anaga ahaanna waxay nala tahay habboon in familkaas ay ka dhalatay Jacfarna ay isku aaba yihiin ay la tahay waana wada arki doonaa